cabdiweli maxamed cali gaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku-meelgaarka Soomaaliya oo maanta kulan la qaatay xubno ka socda ururada bulshada rayidka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in la gaaro xilliga ay bulshada rayidku ka qaadan lahayd doorkooda xaaladda waddanka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ergada ansixinaysa dastuurka cusub ee lagu wado in lagu dhaqo dalka ay dhammaantood ka imaanayaan ururada bulshada rayidka. haweenka dhalinyarada ganacsatada wadashooda intaas yani in la marxalad aad u ah asaasi oo ah koowaad rooba lagu xukumo qodobo tiro badan socota nabadgelyo iyo security gaaritaanka xukuumadda dhexe gaaraysa gobolada iyo bulshada inteeda kale dowladda wanaagii laakiin qodobka ugu muhiimsana waxa weeye qodobka dhismaha dhamaystirka constitutionka iyo dhamaystirka ku-meelgaarnimada dhawaan waxaa imaan doona 135 oday dhaqameed oo loogu talagalay soo xulaan 825 ergada ah ansixin doonta dastuurka haddii la yidhaahdo 825taasi dawca ka koobnaanaya bulshada civil society focus groups oo dhan way ku jirayaan waxaa noqdo saan sheegay dhalinyaro haween xamaadiin ganacsato oo xarnaan ay ka dhex muuqato focus groups oo dhan inay joogaan ka dhex muuqdaan barnaamijka isaga siwilka legitimacy dhab ah marka waa soo dhaweynayaa ra'yigiina iyo taladiina iyo supportkiina ku saabsan dowladda ku-meelgaarka Soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso in lagu ansixiyo dastuur cusub oo uu dalku yeesho ee lagu wado inuu ka dhaco 15 bisha May ee sanadan magaalada Muqdisho.